السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan galab wanaagsan waa galabnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha September sanadka 2025 barnaamijkuna waa kii labaad waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeena subaxnimo. haddaba galabta barnaamijkeena labaad waxaynu ku soo qaadanaynaa qodobo muhiim ah waxaa ka mid ah wararka aanu idinkugu soo gudbin doono Israa'iil oo arrin la yaab leh warbaahinteedu ay sheegeen taasoo ah in rasaastii ay ka dhamaanayso ciidanka Israa'iil. haddaba sheeko la yaab leh oo arrinka ku saabsan waan idin hayaa waxaa soo kale aan idin soo gudbin doonaa warbaahinta Israa'iil oo isla galabta iyaguna ka hadlaya diyaarad dagaal oo Turkigu leeyahay inay kor ka waardiyeynayso doomaha ku soo jeeda Gaza ee doonaya in ay markaa jabiyaan cunaqabataynta saaran Gaza iyadoo horay maraakiib dagaal oo Talyaaniga iyo Spain leeyihiin halka loogu diray. haddaba Israa'iil oo xaaladdu ku sii xumaanayso barnaamijka ayaan idin hayaa warkii ugu dambeeyay. waxaa soo kale aan idin hayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka oo booqday halka uu degan yahayna ugu tagay isagoo marxabeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. haddaba Imaaraadka iyo maxaa ka dhaxeeya Israa'iil maxay ka wada hadleen wararkii ugu dambeeyaan idin hayaa. qaybta dambana waxaan idinkugu hayaa ruushka oo nafta u keenay Yurub Denmark oo ka qaylinaysa diyaarado drone oo ay u malaynayso in ruushka xaggiisa ay ka yimaadeen in laga hoyan waayay saacadihii la soo dhaafay. haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaana qaybta dambe ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno barnaamijkeena galabnimo wixii soo kordha ayaanu idin la wadaagi doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. ogeysiis muhiim ah waxaa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha ah waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions. waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban, kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka, eeraboorada iyo dekadaha, iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro ah oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada Midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe. waana khubaro ka diiwaan gashan machadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C Engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye. waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqayn doonaan adeegyadaasi. fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. waa galabnimo sabti ah barnaamijkuna waa kii labaad. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda Gaza. Israa'iil waxay sheegtay dad ku dhow 700,000 oo qof inay ka barakaceen Madiinatu Gaza xaafadda la yiraahdo oo milyan dad ku dhow ay ku noolaayeen halkaas. waxayna dhanka kale duqeymo ka fulisay meelo kala duwan iyadoo la sheegay dhowr qof inay ku dhinteen saacadihii la soo dhaafay weerarada Israa'iil ay geysanayso.
iyadoo hawshu halkaa marayso ayaa dhanka kale warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen war ay Israa'iiliyiinta la yaabeen waxay yiraahdeen ciidanka rasaastii ka dhamaan rabtay dhowr arrimood darteed kow dagaalkii oo ku dheeraaday waqtigii ay ugu tala galeen waqti aan ahayn socda oo maalmo kadib sanadkii saddexaad lugaha la gali doona midda labaad waxay sheegeen dawladihii Yurub oo ka joojiyay inay ka iibiyaan wixii hub iyo rasaas ahaa hore ay u soo qaadan jireen dhanka kale waxay sheegeen badii inay noqdeen warshadihii hubka soo saaray Israa'iil inaanay ku filneen rasaasta maalin walba ciidanku isticmaalaan sidaa daraadeed waxaa la yiri khatar ayay ku jiraan askartu rasaasta waqti kasta ayay ka xumaan kartaa oo rasaas yari ayaa jirta leeyahay haddaba marka aan tuso sheekada cajiibka ee laga qoray arkaas haddaba telefishinka Al-Arabiya ayaa goordhow wuxuu qoray wuxuu leeyahay azma ama dhibaato dhinaca rasaas yarida ah ayaa waxaa la sheegay inay soo food saartay ciidanka Israa'iil sida ay sheegeen warbixino la helayo oo muujinaya arrinkaas haddaba wararku way sii socdeen waxaa leeyahay ciidamada Israa'iil ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay la kulmayaan dhibaato ku saabsan dhanka rasaas yari soo food saaraysa haddaba su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa sida ay hawsha ku dhacayso laakiin waxay cadeeyeen inta badan inay tahay hubkii Israa'iil ay dibadda kala iman jirtay in markaa aanay haynin iyo sidoo kale soo saaridii hubka oo aad u yaraatay sida ay qortay jareerada Israa'iil ka soo baxday ee yiraahdo Israa'iil hayom way marka sheekadu marka waa sheeko runtii cajiib ah iyaga qaylinayo leh rasaastii naga go'aysa oo ku haya nimankii laba sano la go'doomiyay meel ay wax u galaan jirin rasaas la naga go'day kuma hayaan ma qaylinayaan waa u tagay Al-Yaasiinka oo kugu yaala meel ka keenay kala sheeg waxa yahuudu ay la yaabataay waxaas waa iyagiina askartoodu way qaylinayaan waxa leeyahay dagaal boodi karnooy rasaastii naga dhamaatay ku hayaan yaab adduunkaas marka la jooga qodobkaas halkaas ay kaga gudbaynaa sheekada kale xiisaha leh warbaahinta qabsatay maanta waxay tahay Israa'iil warbaahinteeda ayaa waxay ka hadlayaan waxay leeyihiin diyaarad dagaal oo Turkigu leeyahay ayaa saacadihii la soo dhaafay kor ka ilaalinaysa doomaha ku sii jeeda Gaza oo fiirsada doomihii ay wateen dadka nabadda u ololeynaya ee Gaza ku sii socday ayay kor ka waardiyeynaysaa horeyna waxaynu halkan uga baahinay Talyaaniga maraakiib dagaal uu leeyahay Spain oo iyaduna markab u dirtay si ay u waardiyeyso dadkaas marka Israa'iil waxa leeyahay halka dhibaato kaga soo socota waxa meesha ka dhici doona maalmaha soo socda waa la yaabi doona iyadoo la leeyahay 3 maalmood uga haray doomuhu inay soo gaaraan Gaza sida hadda ay ku socdaan haddaba Turkiga iyo Israa'iil halka ma isku farasaari doonaan Talyaaniga iyo Israa'iil ma istaaban doonaan maxaa halka ka dhici doona waa su'aasha weyn ee ay dad badan isweydiinayaan haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray diyaarad Turkigu leeyahay ayaa la sheegay inay dul haadayso oo ay dusha kala socoto doomaha la baxay Ustul as-Sumud kuwaasoo ku wajahan Gaza hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegaysaa diyaarad Turkigu leeyahay in markaa la arkay iyadoo dusha kala socota oo waardiyeynaysa doomahaasi ku soo jeeda Gaza waxaana la sheegay maalinkii labaad inay diyaaradan kor kala soconayso oo ay la socoto doomahaas oo ay waardiyeynayso waa war cajiib ah Soomaa Turkigu kor kala socdaa Talyaanigu maraakiib soo raaciyay waa nimankii yahuudda ahaa war haystaa leeyahay anaguna waa la socon doonaa xaaladaas halka ay noqoto ma boolo xoofta Turki iyo Talyaani iyo ma iska hadlayaan Israa'iil war walba waa ka go'antaa inay weerarto Gaza in la furo ma ogola maxaa halka ka dhici doona waa su'aasha adduunka oo dhan isha ku hayo la isweydiinayo marka waa arki doonaa adikuna bal fakari aragti waxa haysaan waxa meesha ka dhici doona noo soo qora maalmaha soo socda qodobka saddexaad wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka ayaa meesha uu degan yahay ugu tagay ayaa la leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo magaalada New York ku sugan halkaas uu ugu tagay isagoo salaan ka sida Mohammed bin Zayed ka madaxweynaha ka ah Imaaraadka
wararka imaaraadku ay warbaahinta siiyeen waxay ahayd in imaaraadku uu kala hadlayay in la joojiyo dagaalka Gaza dhibaatada uu halkaa ka hay joojiyo in dhulkan Falastiiniyiinta waa qaadanaya daanta galbeed ay leeyihiin Israa'iil inay joojiyaan waxaas soo qoreen laakiin warar bil cagsi ah socdo leeyahay imaaraadka iyo Israa'iil arrin gooniya ka dhaxaysa imaaraadku waa wakiilka gaarka ah Israa'iil ku leeyihiin ee bariga dhexe iyo meelaha kan iyo carabta gudaheeda iyo u qaabilsan marka sheekadaas marka halkaas ay maray hadaba aan tuso wararkii ugu dambeeyay jaridda la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa galabta qortay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaa kulan la qaatay Netanyahu magaalada New York waxayna ka wada hadleen arinta ku saabsan sidii loo joojin lahaa dagaalka Gaza iyo sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyo iyo cadaalad ah inay ka dhalato gobolka marka warbaahinta imaaraadka iyo warka ay warbaahintu siiyeen waa saas inkastoo Israa'iiliyiintu aanay faahfaahin badan kulanka ka bixinin marka kulanka isaguna waa dhacay qadar xayeysiisa kadib waxaan idin hayaa sheeko kale oo yaab leh Ruushka oo maalmaha neefta ku dhijay Yurub Denmark lama seexan saacadihii la soo dhaafay way yaaban yihiin askartii iyo booliiskiiba diyaarado daroon ah oo saas meel ka yimaadeen aan la garanayn ayaa saldhigyadooda militariga ugu weynaa dulheehaabaya haddaba warbixintaas ayaanu geli doonaa xayeysiinta kadib متعشى برشاد القرآن الكريم كا يعلم تشريع هذا هب عصري أونلاين أذيك وجوه كوريجا أما قبض هذا شقدا مركز دار التقوى وحكوا بري القرآن كهب عصري أونلاين ما دون كتقبل كرتو حكم ذا القرآن الكريم كا إجادة لغة عربية إيو علوم تشريع هذا استوان قلت وايد سعوطة فضلا هروكات وهي فافهنا كلا حديد من برضه شاشة كان مغضى هموكاد دوكسيجا مركز دار التقوى شركة إمارة لكشري هومز وشركة قريها عصرية كدست مقالة نيروبي دالكا كينيا haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo sabti ah qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeenu maraynaa waxaan idiin hayaa ninkii Ruush ahaa Putin naftu u keenay dawladihii reer galbeedka gaar ahaan Yurubti Sweden maalo hor waatay qeylinaysa haddaan diyaarad aragno Ruushku leeyahay waa soo ridaynaa Poland diyaaradu dhexgeliyay oo gudaha qaar maartay ay ku dhaceen hadda waxa la maraa Denmark kaadadii lagu dhajiyay waxay yihiin diyaaradaha ma yaqaanaan naftay u keeneen Ruush waayna ma dhihi karaan meel ka yimaadeen ma yaqaanaan kaalay wax naga qaadaan leeyahay markaasay waxba ka qaadi laayihiin diyaaradii droonka ahaa ayaa saas ugu dulmeeraysanay markaas waxay leedahay gabadha ra'iisul wasaaraha ka kulan Yurub ay isugu iman doonaan toddobaadka soo socda Copenhagen ayaa waxa ku weydiisan doonaan Sweden waxay dhihi doonaan hubkan aad kula dagaalamaysan droniska nasiya Denmark dhays Yurub waxay adduunka gumaysataba oo ay waxay rabaan annaga qataranahay dhahaan nin Ruush leeyahay meel ku soo ogaaday naba ku inaysan tabar bahaynin cabaadkooda baxay haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay 2 diyaaradood oo daroon ah ayaa lagu dul arkay saldhigga ugu weyn militariga ee wadanka Denmark warbixinta way sii socotay waxa leeyahay booliiska Denmark ayaa sheegay in 2 diyaaradood oo aan la garanayn inay dul heehaabayaan saldhigga militariga ugu weyn wadankaas waxaana la sheegay in mas'uuliyiinta Denmark ay sheegeen in weerarkan uu yahay mid loo qasday in halka lagu soo qaado haddaba waxa leeyahay waxa la xiray dhowr meelood oo airport ah si markaa looga hortago inay wax dhibaato ah halka ka dhacaan haddaba waxa la sheegay in ay Denmark doonayso inay Sweden ka qaadato wax ku saabsan hubka la sheegay in lagu la diriro diyaaradaha
marka toddobaadka soo socda ay madaxda Yurub ku kulmaan caasimadda Denmark ee Copenhagen marka halkaas maraa ninkii Ruush ahaa waaba iska cayrsanaaba nimankii Yurubiyanka ahaa daroonis inta u diro isaga baashaalaya qayladooda yeelaysa marka hawsha halkaas ka socota waa la yaabiya meesha ku dhabaatay iyadana waa arki doonaa barnaamijkay galabta waa dhagintaa wixii soo kordha hadii Allah idin barnaamijka caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa like gareey oo share gareey fakar iyo aragti waxaad haysaan noo soo qora qodobkaad isleedihiin aragtidiina waa ka dhiiban kartiin barnaamijka haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe ka iloobi YouTube ka Facebook na follow gareey inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo